ninkan mehan fuula sawirkiisa in soo saar arkaysaan maanta idilan tiktok arkayay wallahi waan ka naxay kawaran ninka hadduu wuxuu haystay yuundo waxuu taqaanaan maqaane uu ku qodayaa meesha waxaa ku jiro xaaskiisii iyo markaa 4 cunug oo dhale oo markaa ay duqeeyeen Israa'iilta Yuhuudi ay guriga kulli u la dumay guriga hoostiisa ku jiraan markaas reer Falastiin markaa ma haystaan wax alaab fiican oo markaa ay ku soo bixiyaan dadka guriyaha lagu dumiyay marka waxa waa yuundo haysta dadka say u loqodayeen markay daareen asagiya handana qodi hay waa in soo saaray sawirkiisa halkan ka ardoontaan marka wallahi waxyaabaha loo geysanayo wallahi reer Falastiin wallahi waxa la adkeysan karma madaxdii marka muslimkana way iska aamusiin wixii qaldan ya af una yahay qof action marka gacan qaadaya malaha wallahi yaa bajiriya ka u duceyna mar walba salaad ku taan insha Allah u duceyna reer Falastiin wax kale ma awoodna malaha aan u duceyna ilayno dhibaatadan ka qaado mideeda kale muslimiintu ilayhi midee muslimiinta daymido waan dunida waxa meel heer fiican ay gaaraysaa waxaan dadkan dulmigooda cadaankan iyo qurunka ilayno gees noo dhaafi aan faataxado mar walba salaad ku taan ducada kiilmaamin insha Allah soo duceeyo marka wallahi waa ka naxay sawirran qaar video shaqaran ku arkay TikTok wallahi waa ka naxay ilaa Telegram waxyaaban ku arkay waxaas la eegi karo ma hata social media lama soo gelin karo wala bixinaya marka wallahi dulmi waa dhafaas marka insha Allah aan soo duceeyna muuqaalkana dhameysay ilaa dhamaadka say u gaaraan dadka Soomaalida marka ay ugu soo duceeyaan Ilaahay inuu dulmi ka qaado insha Allah khayr in rajayna alla ma moogana dhibaatada waxaan kuli dhacay wax walba xumaan fiicnaan bilaa amarkiisa ku dhacaan marka laakiin waxa waa tijaabo anaga nagu eegaya marka insha Allah Ilaahay waxba kuma dhama insha Allah awoodiisa tus haddaba xal sheegaya waxyaabo qaar oo la sheegay dadkaani waxay yiraahdeen maqlay ruuxa ma la dagaalamayna Yuhuud markay dagaalka Xamaas iyo kay gacan saaran marka kolayt malaa'ikta Ilaahay waa ruuxa ma ahan marka insha Allah aan soo duceeyna khayran rajaynaya